gabadha marka gabar caan uma maleynaynin aha ma fahantay marka guriga marka saa u tagnay baa waxay igu dhahday anigu soo dhawo magacayga okay maxaan dhahay dhib ma laha ileen ana qof maxaa dan iyo duruuf i haysay صح meela haysta meela seexdana ma haysanin meela maxaa la cunto ka cunana ma haysanin danta igu qasabtay صح iyo duruufo jira awgood oo wixii quraacdii waxa dhameeyay bay dhahday in kaali gabadhayda bambaska ka bedel aha bambaski waa gabadhii ka bedelay bambaska anoo gabadhii ka bedela waxay u dhahay wax baa ka soo shiiraaye diracaaga maxaa wax ka soo shiiray iska bedel marka waxa muhiim ah inaad bedelo ها muhiim waa inaad bedesho dhar kale ma qabtid miya si jees ahaan camal way igu dhahday aha يعني ده قف كان كتمشى عمل ما فهمتي ميد بتكار عمل يعني نكت عمل أو كنيات وش قيس عمل يجي دقيسة قرأتي مركا ونقري دوانها سوجدين قبر سوماليات قبر لا شيء أنا هرب فديده وحيقع عصتي إن قصة حنون بدن إذا كل عذي نوقش كيسو قصة هذا وأصل أركينا كهر لكن أنت بلابن وحكى عسني وريت تشارك سبسكرايب كويهن إنا سبسكرايب إسرتيد هذا وما سنتهاي ما أنتنا وحيلا لجوكته عاشو أقصد وين يا ودوها هي إن وحيقع عصتي إن قصة هذه كون عذينا لو ذاكتيد طبعا أقصد وين يا أقفر عسنا يعني ديار وتينا قصة لو ذاكتيد سيدا وكلا أوكي قصة أنت بلابن إيسا سيدا دوحك بلاونيسا حريا أخوتيga xaga dheer ba ka imaaday waxaan uga imaaday inaan yani oo shaqo raadsado oo Nairobi shaqo soo raadsado صح baa uga imaaday waa gartay maxaa dhahay musayga abahay uriyaan waaye gabar kale waxa jirta oo iga weyn oo ayadana Liibiya ku xiran baa jirta okay so familka waxa u shaqeeyay marka waayay baa Nairobi soo aaday Nairobi waxa soo aaday shaqo inaan ka helo okay shaqadii Nairobi waa maxaa dhahay waxay noqotay shaqada adag oo la isku siiyay yani xigta la isku siiyay noqotay shaqada kaliya oo ii soo baxday baa waxay noqotay shaqo guri okay shaqadaas ka hor gabar baa horta markii hore liigu soo xariiriyay gabadha markii liigu soo xariiriyay gabar kale oo ayadana oo saaxiibo aan asxaab aan igu soo xariirisay gabadhii baa gurigeeda ku soo degay صح gabadha gurigeeda marka ku soo degay يعني Nairobi guryaha way yar yihiin waa la isdibsanaa meel la kala seexanayo malaha soo maaha صح gurigii marka imaaday waa la ii soo dhaweeyay maalintii koowaad maalinta kale maxaa la dhahay gabar baa tahay yani waxa alla waxa jeceshahay guriga waa ka samaysan kartaa guriga waa laga dhalay amal baa la dhahay waa la ii soo dhaweeyay صح marka la ii soo dhaweeyay kadib baa waxa dhacday yani waa yar xanuunsaday hergab iyo waxa igu dhacay ani kaliya ma aha laakiin iyada laba gabdhood oo iyada ee dhashay yani baa ahayd inta xanuunsatay صح marka maamadii waxay sameysay kaniini bay soo gadaysaa kaniinigii gabadhii bay siinaysaa biyihii kaniinka way la garab dhaafaysaa aniga heer waxaa gaaray xitaa qof cadi ii gaday inaa waayo cadi ku cadiyaysto qof ii gaday inaa waayo anina lacag ku gata ma awoodin صح warqadani waxaa warqadii kowda hore ku soo baxay baa waxa ii soo jaray wiil oo waxa isku nahan camal baa ii soo jaray warqada يعني lacag sharci ahaan wadadku sharci ahaan baa wadadku soo maray Nairobi marka imaadan wax lacag oo haystay ama wax ku gadan kara ma haysanin صح marka gurigii gabadhii igu soo xirtay baa cabaar joogay gurigii baa ku yara xanuunsaday marka ku yara xanuunsaday maamadii kaniinka marka ay la garab dhaafaysaa arkay anna waxay daryeel la'aan rafaad waxa ku cadiyaysata ma haysatid gabaraate wax walba u baahan kartaa صح marka qaar cuntada waa laga dhameysanayaa la hooyada ma joogto meesha gabadhaas igu dhig cuntada ku dhahaysay صح marka meesha cabaar joogay shaqaa la ii soo helay shaqada marka la ii soo helay maamadii eedadii waa u tagay يعني إيدا لحمي ما يعني خرابة هين اسكو قبيل عمل اسكو قبيل عمل هين ما مركي اللي يسوى gurigeeda على كاني والي خنا نيرو أنتي واجوكتو كيان كان عاها كيان كوشقيان أنا عمت كارين على يجي أوكي مركا ماموين كلا شقدي يسوهلين مركي اللي يسوهل شقدي واسكتة أمر لا حد عادي إن ناقته هوس كفي جسم مامدي أنت كيان تدو شقالها هيد إن هوس كفي جسم صح هوس مركي كفي جسم بقى حد عادي محد مامدي ناقته شقاله أو ناقته شقاله حد هو بحد يدو هذا العقل صينا ياي إن إيه خوا شقدا شقدا أيضا خوانيسي يتي أديك لجاري بسكو خوا ها أوكي قبيل هذا مركو حدا أنا قف نفلها هاي سكون قبين كذي سوي حجران إيدوي مركو إيدي حدا وحس مجرتي هديك كلا إن إسكبح لعقتني يعني بيش مركو دمعتو وإمو marka cabaar mu waday mise isla maalintii oo lagu sheegay labada shay isku qabaatiri ma qaban karo tadawbiri waa waday
dabada biriide waa isku wadi waay qof naf laha ahay musqul ma dhaqi kari Nairobi guriga la tirtiraa guri ma la tirtiri kara qabow waa ku galay samaha sax marka waxa dhahay inta ka bad ma dul qaadin kari eedo marka hadda u baahnayn inaad dul qaadid marka shaqo way maada eedo shaqo meel kale ilaha kaaga sahlo waa iska bixi kartaa iska bixi kartaa waa fasaxantahay lacagtana bishii iga soo doon hadda lacag ma heli kari bay igu dhahday marka anina telefoon wiil ma haysanin soo marka wiil telefoon toosh la haystay wiilku yani ilmaadeer qaraabo aan ahnaa waxay wiilkii baa wuxuu igu dhahay yani meesha sa jooga section 3 jooga igu imaw section 3 aade sax section 3 marka aade wuxuu dhahay guriga baay waa kana yani walaasha maxaa lahayd waa ina caawisid de waxa guriga qaban kartiin inaad ka qabato shaqada intuu ilaahay kaaga sahlaa in iska sug marka wiilka marka wacdo waxa tiri guriga laga soo celiyaa tiri waxna ma haysto marka wuxuu ku dhahay gurigaas kiiba buu dhahay anaa ka bixinaaye waqtadii waa soo raacay gurigiisa tagtay xaaskiisa miyaa marka mas'uulaashiisa xaaskiisa waa yani wuxuu dhahay gabadha walaasha waan dumaashadaaye yani caawi waxaad u samayn kartid u sameey sax okay dhib ma lahana de guriga marka arkay haddana marka aad bariyo joogay in la ii dhibsanaayo oo maxaa lahayd wajiga la ii bedelaayo waxaa dhahay buu shaqo ii soo raadisaan si dhaanta waxbaa shaqo ii soo raadi shaqo u baahanahay sax okay dhib ma lahan waa kuu soo raadinaya shaqadii waa gabar kale la soo helay sax alhidaaya waxaa la igu balamiyay isagii waa raacay marka ma gabdhihii laba gabdhood ay soo dirsatay iyo wiil kale gaari waday saddexdii afarteena ayeen guriga marka yani marka gaariga tagnay oo yani meel adii sleek ka fogsan oo kala la soo ay ku sheegayso magaceeda baa tagnay sax marka guriga tagnay baa waxa dhacday waxay dhahday ku soo dhawow aniga gabadha marka gabar caan uma maleynaynin ma fahantay marka guriga marka saa u tagnay baa waxay igu dhahday aniga soo dhawow magaciga qaaladan allaha baraha bulshada waa taqaanaa kulli magaciga waa maqashay magacaaga maxaa dhahay waa maqlay laakiin aan baraha bulshada waxas ma isticmaali telefoon weyn ma wati maxaan ku dhahay kulli dhib ma lahan qaaladan aa lagu dhahaa samaha qaaladan aa la dhahaa barasho wanaagsan bay ku dhahday sax marka qofkii oo inaa u shaqays lagu geeyo waay okay marka waxay dhahday 12 kun ay igu shaqaynaysaa maxaa lahayd 15 kun ana waxa ku dhashay 15 kun yani meeqa aad jeceshay in ha ku siiyo igu dhahday marka waxa ku dhahay 15 kun aan u baahanay ka yar ma rabi maadaama gabar yar iyo maxaa lahayd dabkana lagu shida gabadhaas yartana lagu heenaayo sax marka waxay u dhahday maxaa lahayd anima awoodiyo 2 kun museegayga oo galiya ana lacagta aniga ma dhiiba museegayga dhiibaayo museegada waxay ka wadaa ninkeeda okay ka wadaa marka ninkayga dhiibaayo lacagta ana lacag ana dhiibaayo ma aha soo marka 12 kun oo galiya isaga igu dhahday sax okay maxaa dhahay dhib ma lahay leen ana qof maxaa dan iyo duruuf i haysay sax meel haysta meel seexdana ma haysanin meel maxaa la cunto ka cunana ma haysanin danta igu qasabtay sax iyo duruufo jira awgood marka tagay waa ogolaatay lacagtii waa iska ogolaaday lacagtii markaa ogolaaday baa waxay u dhahay soo dhawow hadda ku dhahay waa dhawahay waxay kaloo igu dhahday meesha nigta waa arkaysaa guriga camera ku wada xiran nag kaloo anti oo shaqaalaha joogto oo kenyaati ah nagtaas iyo alisaa ku macabila laheedeen yani saa isku fahmi laheedeen idinka idin taalaa laakiin ani waxa ku sheega adii nagtaas inaa isla seexanaysiin maxaa dhahay qolka waa isoo tusin kartaa caadi waa dhimal waa isla seexanaynaa qolkii markay i geysay yani qol adii yariisuu noqday ma fahantay musqulaha Nairobi camal musqulaha yaryarka camal oo yani qol joodari hal nafar camal galay uu ahaa sax joodariga marka gees camal joodari gees oo qolka xitaa u galay nafis dhan ma lahayn marka gurigii marka yani joodariga marka arkay guriga inuu yar yahay arkay baa waxa is dhahay saan macquul gal ma hayse wax u jiraan sax haddana waxay dhahday qol kala jiro oo ninkayga kaamirada iyo maxaa lahaayay iyo studio waxaas u ah marka waxay u dhahday dhib ma laha ta qolkanayt yani aad diidantahay qol kala jirta ku geynayaa oo ninkayga studio yani inaa is ilaalisan waa loo baahan yahay waxay dhahday dharkaaga ku seexanaysaa adiga yani dharkaa ku shaqaysa ama yani dharka ma iska bedelaysid sabab yani de guriga camera ku wada xiran oo maxaa lahaa meel kasta camera ku xiran adoo gabsaar la-aan inaa socoto looma baahno inaa mar walba waxaa dharkaaga wadatida loo baahan xijaabkaaga wadatida loo baahan yahay guriga marka ciriiri baa ku dareemay saasay tahay waxaa igu dhahday yani waxba usoo kariyey wixii markaa usoo kariyey wixii quraacdii waxaa dhameeyey bay dhahday kaali gabadhayda bambaaska ka bedel bambaaskii baa gabadhi ka bedelay bambaaska anoo gabadhi ka bedela waxay u dhahday waxbaa kaasoo shiiraaye
diracaaga maxaa wax ka soo shiiray iska bedel marka waxa muhiim ah inaad bedelo ها مهم وأنا بتشتغل كلمة قبت دمية سجس أهان عمله يقول هذا يعني ده قف كان كنت ماشي عمل فهمتي بيقول هذا أوكي بحد هدي ملهن مركي يقدر وح كلا يقدر ستوحي كلامك أصلا قضاء أو يعني وحي كلا أوكي نقول قصة قلبي ولا درعي ما ولا تا حكى قلنا قفيه البادية ده بيقول هذا فهمتي صار مركي نك هذا المخلية أتليست وحافي عن قفكم مركي وحش شيء يسدينا ميل جوني ولا بحديد والله waxaan iskaayihiin inaan sameeyna dhahdo fiicanta samaha sax soo inta way meedhihiin ninka doortiisa wax walba igu dhaheysay ana qof ilan shaqaala tahay waa dul qaadanaysa samaha iska dul qaadanaya marka maxaa lahayay waxa kale oo jiro yani habeenkii camal way bixaysaa outin aadaysa outin markii aado yani qof maalinta dhan iska dawareegayo cunug yiriisayo oo shaqaana waa dareemi kartaa samaha إن ما هبين كأنه نستوى ما يوصح وقت دار وصح وروا سماها صح يدا أنت وما تقاني بحد هذه أنت أنا قبل يدي يا إيجاس وكيعين أو قبل يدس إيه إلى عليها سيحنين سمر قد أنت حي وقصتنا هبين إيمالين سوجدوا قبل يدي إيه إلى علي يعني هبين وايل أنا هبين كي شقم لي سماها وهنا سيحدا سو هبين كي بحدها قبل يدي إيه إلى علي ما بالكين كرت مسيحن كرت تودي أكو قوانين فدي قاسنا مكو أقولينا فريستو تيفي قاسنا ما دابن كرت راجع ودي تيفي كان لا دابتا فدي ما فريسين كرت محل أقول سو كمش قيس هذه ها قرب وكش قيال يعني ميد بتكار عمل يعني ناك تعمل أو دكيات وش قيس عمل إيه قدي قيسا كرته مركا بحال هذاي لما لهنا ده ساس سلعة سكجري أيضا ساس أتهب وحيسيلها سا محمد بالكيسد وحصف يعني يقوم بالكين يسد البادية تهاي حقكي ما ده حاجة لقى كينه فهمتي هذه الشقدي كل شيء سين ما خبرين هذه شقة أنا كل شيء وحتى عنتدا أنا أكري إنا قبضاس وهي صدق هذا وقتي أنا عنتدا أكري إنا قبضاس وهي كل شيء أنت نواسم يسا أنت أنا سمعنا يا خايلي بوق ده هذا المحل ده هاي وحكستي يقول سمعني سين يسديني قبضان ولا شوا يسديني بيقول سمعني سين marka adiga kisto waxaas lahayd maadaama ay Soomaali tahay adna Soomaali tahay in yani ku damqanaysaa isdahay gabar walaasha waa iyada ku dareemi kartay iyada gabar isla tiin bas dhahay inta naani kama helin maxaa lahaay in caay aflagaado wax kasta ay dhig jirtay aan iska dul qaadan jiro shaqaala tahay iska dul qaaday leen meel kale ma haysatid maanta aadide bas dhahay adi marka uu dhahay dharka iska bedel maxaa iska bedelaysaa adi anu dhar fiican ma wadanin de waxa wax ku gatana ma haysanin lacagna ma haysanin saas darteeda marka ku qasbanahay inaan diriciga ku taagnaado ayadana dirac kuma siinaysaa ma haysti maxaa u dhibaysay si toos ma haysti hadaa dhaho maxaa dhar la'aan ku dhiga bay dhahaysaa aflagaadada iyo caayada iyo waxay ii geysanaysaa wax walba iga darnaysaan baa tahay kana tahay iyo de wax walba ay caanayso qof oo hurdaayo waa dareemi karta samaha isxirxir camal yani kaamiradu way ku qabanaysaa dadka ajnabi baa kala tihiin qof qaangaara tahay samaha marka kaamirada waxa dhahaysaa kaamirada iska ilaali kaamirada iyo ku qabanin kaamirada marka kaamirada guriga ku xiran guriga dhan kaamira ku wada xiran agarate soo kaamirada iska ilaali qolka ninkayga waaye marka ina maxaa lahaa foojignaata loo baahan yahay maxaa iska ilaalinay marka yani waxay ku leedahay yani habeenka markaas xiriirsa isqaawin oo kale isqaawin dhahaysaa see u seexan jirtay marka sida caadiga dharkayga ku seexanay marka ku shaqeeyo ku seexanay sax waxyaabaha kale oo dhibka lagu sameyn jiray waxay ahayd midabta koor yani qof walaasheed camal igama dhiganaynin naagta shaqaalaha camal bay iga soo qaadaysay fahanti yani adi waxa ka rajeynaysaa jiray iyo waxyaabaha meesha kala kulantay أنا ما حاسدها جودا جور ولا شيء وكودم خنيسة أو حاسدها يعني جودا صديق بودكتي سومالي باتهين قف ده كودم خناي واي ولا شيء واي حاسدها سيدا أنا باس كأكيد رومانتيك ما يسوي بحنا يدا marka waxyaabo hadda saas u weyn oo isku qabsateen hadda ima sheegaysid unless aad wax qarinaysid TV hadaawan de wax dib weyn ma aha adi TV na daawad meesha u batay iska fiicnaa oo ina maanta ku nafis aaraba waxay tahay qofka maxaa lahaay lama dhaho de waxa ka soo shiray iyo insaan iska bedel iyo ma la dhaho ma fahanti qofta hadaa wax inoo sheegto baahantid meel gooni loo sheega samaha sax laakiin iyada waxa waaye ninkeeda horteed wax kasta igu dhahaysay dhar may ku siisay marka dhar ima siinin dhar kale ma haysan adigana
ana dhar kala maysan aniga waxyaabahaas oo kale saaid ugu xumaanay sababtoo ah midabta koor waaye fadhiga ha fadhiisanin iyo TV-ga hadaaban TV-ga ida iska lahada iga rabo taxta dib uma arki صح laakiin maanta booska aniga ida ka rabo igama soo bixin hadda aydu ma shaqaysid Soomaa ayada ma shaqeey hadda guri kala ka shaqeey okay kadib si u go'aansatay inaad ugu soo tagtid maxaa dhacay kadib waxa sameeyay waxa dhahay familkeena qaxootiga laga soo dhajiyay markii inaa baxaar waa sababtoo ah markasta dhaga hadal iyo waxa muu dulqaadin kari Soomaa صح qof oo kugu dhaga hadlaayo oo ninkeeda hortiisa kugu dhaga hadlaayo dibkeeda la Soomaa صح marka kaasa leen kale soo diji xasaasatay ها وانا لا soo dhajiya ku dhahay ma ku fasixi kariib suurtagal ma yahay ay u dhahday ma lagu soo dajiyay mise ayada kaga tagaysa markaa ayada rabay in aniga kaga tago nolosha silca ina kaga tago arabi qof ku naxariisanaynin oo sideen gabadha walaasha waaye qof ayada maanta saani ii gashay in loo galo marata moogtay adiga ma tiri markii hadalladaas oo kale ku dhigi jirtay ma dhahday waxa say dhihin gabar walaashaad oo kale ahay hadaa ku shaqeynay hatta ina ka liitama kuma soo celin jirin hadal kuma soo celin jirin kadib waa ka soo tagtay hay maxaa kaloo dhacay kadib waa ka soo tagay reer baa u tagay reerkii reer baa hadda u shaqeeya alxamdulillah laakiin iyaga sida hore ima baalkiyaan laakiin silca uu jira alxamdulillah laakiin sida hore ayaga ima yeelaan sida gabadha ay gashay ma yeelaan laakiin wali yani sidii arabtay ma sidii arab wali adii maxaa ku qasbay adoo gabar in meelaha shaqo ka raadaysid saas u shaqaysid familkaaga maxay qabtaan aabbahay uriyaan waaye hooyaday walaashay Liibiya ku xiran tahay hooyaday ilmo yar bay haysataa ma shaqeyn karto adiga ma u weyn familkaaga familka aniga gabadha saa weyn labadii ma wada weynaan kartiin labadii yaa weyn iyada iga weyn Liibiya ku xiran tahay hadda reerka wuxuu shaqeeyaan un baa ka jira aabbahagan maxaa ku dhacay tiri aabbahay uriyaan waaye lugu laga gooyay ayagana waxay joogaan ayaga waxay joogaan xaga dheer qaxootiga okay riyaa qaxootiga joogaan waa gartay marka Nairobi waa taqaanaa silceeda cid maanta wax ku gadaysa ma laha gabar baa tahay haddaa sidaas ku sii socotana waxaa noqonaysaa darbajiif iska noqonaysaa sabaha soo xoogaaga xalaasha inay ku shaqaysato way fiican tahay sax sax adoo xoogaaga xalaash ku shaqaysanaysa lagu silcinayaa lagu naxariisanaynin wax walba lagu dhahayaa oo xitaa la isdhayn qofkan Soomaali waa dhiiguni la wadaaga xitaa la isdhayn ma fahamtay صح so dad imisa qof soo shaqaysaadi badan soo shaqeeyay imisa family amal afar family marka dhibaatada aad sheekeynaysa maxaa gabadhaas ugu sheegaysaa ma gabadhaas uma dhib ku aragtay mise yani maxaa ayad u taageeraysanaysaa iyada ugu daran laakiin waxyaabo kale waa soo arkay laakiin iyada ugu daran ma fahamtay dadka kale waxay ma dhahin waxba igama sheegin laakiin iyada way midabta kooreysay so hadda family la shaqaysaa maxadda macasanta marka ayaga hadday haddana isku dhacdeen kuwa kale usii tag mise yani nolosha sida kale maxaa rajeynaya wallahi nolosha haddii ay isku ka aadnaan lahayd maanta haddii lacag heli lahayd oo kale yani meel baa hagaajisan lahaa yani noloshayda ku maareyn karo aa samaysan lahaa waa iska fahmi kartaa berika maalin oo kale baxa waa lagu dhahayaa 6 saac oo kale guriga waa laga soo fiijinayaa heer haddaa isku dhacdiin ma la is dhahay qofkan guri ma haysto isma dhahaaya 6 saac habeen ma lagu soo fiijinayaa maamo waxaa jirta xitaa u shaqeynayay oo maxaa la dhahayay yani gabadheeda isku yara dhacanay waxba ay dhahay maxaas idhahaysaa si anisaas ila hadli kartaa hooyadeed bay la soo hadashay hooyadii ordis ayay imaaday waxay dhahday gabadheedi maasaan dhahday ma dhihina eedo waxaa iska dhahaysaa maya waxaas ma jirtay dhahday waa barya adoo raali boorsadaada qaado lacagtana bishii iguma hadda ma heli keliya baxa iska baxa saacadana 6 saac habeenimo maraysaa marka dadka Soomaalida si u bateen xariis la'aan waa ay kuligooda sax dad kale qaraabo iyo adeeryaal wax ma jiraan miyaadi oo maya adeer ma jiraan waxay caawiye ma haystay inta wax qaraabo ma ku haystay meeshanaadi so lacala haddii wax ma saf gareystaa mise wixii intii hore aa shaqaysin hadda waa kugu baxaan maya wax ma saf gareysan kara sababtoo ah mar familada waxa loo shaqeeyaa 14 kun 13 kun loo shaqeeyaa soo familki kama badno ani anaxta wax kara 10 shilin baa ka reebta wax ka reebanaay inta kale waa diraa si nolosheeda wax u bedeli doontaa marka nolosheeda inta ay familkayga iga daran nolosheeda ani dib kasta familkayga waa u mari karaa iyaga dhiban soo maaha walaalada iga yar waxay haystaan malaha so shaqo kale ma raadisay mise haddaa shaqo raadsid guryaasha suma ka raadisaa oo shaqaalaha ka noqotid
shaqo maybe demeela guriyaash laga shaqeey ka duwan ha noqoto maqaaxi canjeero la dubay oo kale qabiil ba halka wax la isku siiyaa yani qofka neetu waxa waaye in qabiilkayga waaye camal ama wixii dadka isxigta camal wax isku siiyaa isku day in raasidaadi waa isku daya laakiin chance iyo waxaas ma u yeelan sababtoo qof markuu guriga shaqeynayo waxa waaye xabsi waaye oo ma bixi kartid meel ma aadi kartid inta usxataa lagu dhaha anaga managa amar qaadanine xagee aadaysaa lagu dhahayaa so 4 guriga ka shaqeysid waa shaqeysaa 4 saaca waa shaqeeyaa xitaa marka qaar ka saxday waa liisoo kiciyaa kaali waxaan qabo waxaan dhaqo ali dhaha qofta way hurdaysaa xitaa nafeeleeda lisma dhaho laakiin adiga cunta karisa sax أنا عمتها كريها سو مقاحدة أو كل عمتها لها كريها سيد عنجيرة الدبا عنجيرة صومالها النقطة عنجيرة مايح النقطة بريسانو دد كانوا واختيار على السياحة ما يبي خوفا راحوا شقينا الصبح إلى 6 أو كله العجا هانا كاغا محمو كوغري مسكو دينا مقاعدة كريها شق نوع سو كلا ها لكن شقادي وحباي غوريغ نيروبي ددك علي كريسينيسا 5 كون halkii qabsamaha ayagana kulay 5 kun kama badna maqaaxida shaqada laga shaqeeyo okay taas marka waxa leedahay heshid oo kale waxa laga yaabaa in wili kari iyo cunto kaaga baxda hadana ha cunto kari iga baxaysa familka lacag iga rabaan soo taas suurtagal way noqon weyday halka kaliya aragtid oo ku sahlan wuxuu noqday in guriyaash ka shaqeysid ha inta soo okay waa jeclaan lahaa laakiin wax kale dheeraad si helo yani shaqadan shaqo ka fiican ah helo oo gumeysi aan lahayn aha oo ku rajeynayna shaqo fiican heshid insha Allah de shaqooyinka la sameeyay iska challenge waa ma fahamtay marka sidii la rabay kuma noqonayaan dad kale way isugu jiraan ma fahamtay dad wanaagsan jiraan dad fiican jiraan marka waa ka xumaa in yani dad xun aragtid ama soo martay waa iska imtixaan wax kasta laga baxaya ma fahamtay haddii lacala kastoo lacag isku ka aadi lahayd oo kale wax niid ku heshid waxa sameyn lahaa ma jiraan mise ma ka fikirin waxaas ها وجران shaqooyin fudud barbaraha oo kale waa laga shaqeystaa maxaa jirta meel kale oo cambuulo iyo Nairobi waa taqaanaa sama cambuulo la kada meelaha la istaaga waxyaabo badan ayaa jiraan laga shaqeysto iyo jecel inaan ka shaqeysto laakiin waxa uu ka shaqeystaa uma haysto sama aha guur ma soo martay maya guur ma soo maray maxaa guursan weyse calafka iska dhiman dabcan soo jeclay ma calafka ma isku dayday mise maybe ada future leh waxaas leedahay familka meel ka saar kadib guurso mise dada waxa jiraan oo kale marka dhibku ku bato oo kale gabdhaha waliba iska guurso iska degba maxaa stresskan iyo dhibkan ku geenaya wallahi anoo dhib kasta igu batay oo silac u maraya ayaga dartood familkayga silac u marayo de wax walba la igu dhahaa ayaga dartood aan marayo haddana marna guurso iguma soo dhicin sababta familkayga jecel yahay in mar walba ayaga iyo noolaadaan iyo farxaan farxadooda mar walba jecel yahay aha muhiimada ugu weyn oo sheekadan aad noola wadaagaysa maxaa waaye sheekada muhiimada ugu weyn waxay tahay horta halkan maxaa maad in aan nafis ku nafiso oo yani waxa ah heeyo wax dhan oo ah wada heeyo in aan sheego ila noqdad ma haysan kartid soo ma aha